السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي qaaliga meel badanida ka joogta waxaan idinku salaamay salaanta islaamka. Sanaan kadib isku soo noqosho dambe oo xiiso leh. Maalmaha waa kala baanay iyo asxaabta qaaliga maasha Allah dadkayga cusub ay igu soo biiray kuni ku jira waa mahadsantihiin aad iyo aad ayaan idinkaaga mahadcelinayaa. Soo dhawaada idinka ayaa wax idinku nahay ummadayda Soomaaliyeed. waxaan idinku salaamay salaanta islaamka. maanta waxaan keenay donut-kan ayaan soo sameeyay casriyadan yar oo quruxda badan leh maasha Allah tabarakallah. waxaan jeclaystay inaan idin la wadaago xaafadda markay caruurta joogaan familka guriga la wada joogo marka qaar waa loo baahan yahay in macaanka laga soo tuuro inkastoo aniga aan ku jiro isdaba qabasho mataqaanin aan ku jiraa marka macaan aniga farq weyn oo dhaxeeya. marka waxaan jeclaystay maadaama xaafadda u sameeyay macaanka yarka idinkana inaan idin la wadaago asxaabta qaaliga. ayaan isku soo shubtay waa bakeeri iyo wax yar oo caano waxaan kaloo ku darayaa khamiirkii waxaan kaloo ku darayaa wax yaroo cusbo waxaan kaloo ku darayaa 2 qaando oo sokor xabad ukun insha Allah. بسم الله في عنا ولا حاجة في صدح كشف في عنا ولا خير كده بحنكو شوية بركي إن شاء الله في عنا وجدا نكوب كسانكو عبرتا ayaan si fiican u qaseena. bismillah intaas ayaan ku darayaa adkaaday isdhihisiin laakiin ma adkaanin sidaas ayaa loo baahan yahay inuu ahaado insha Allah. macaan yar oo qurux badan insha Allah meesha ka soo bixi doono haduu Ilaahay idmo. waxaan u baahanaa inaan inta ku xashino meesha nadiif tahay halkaas ayaan ku xashinaa. sidaas markaan u xashay waxaan ku darayaa subag subagaasaan ku xashayaa. subagan waa subaga caadiga ee la dhalaaliyo laakiin uma baahni inaan dhalaaliyo waan isku tirtirayaa isagoo saas
sidaas quruxda badan soo noqon insha Allah. Hadda waxaan sameynaynaa saliida marina waxyar saliida soo marmariye then sidaas u dhigaya daboolan saaraya insha Allah. ku daboolaya bacdan meel ayaan dhigaynaa oo isku soo noqonaynaa. burkii waa kana sidaan u khamiiray maasha Allah tabaarakallah. ujeedaan sidaas quruxda badan u noqdaya maasha Allah. si qurux badan u khamiiray. hadda waxaan sameynaynaa jarjaraynaa gabadheeda yarta ila joogto lacala haddaa maqashiin codkeeda ka raali noqda insha Allah. waaba maqluusiine insha Allah. waxaan rajeynaa inaa gacanteeda ay wada simnato inkastoo gacanta bini'aadam ay wada simnaaneynin. miisaanna ma haysti aan ku cabiro marka waxaan sameynaa waan rajeynaa inaa si arkay insha Allah uusan kala weynaanin haduu ilaa yiraahdo. aan dadaalaya asxaabe. marka sidaas insha Allah kusoo dhameena waa inoo markaas soo dhameeyo haduu ilaa yiraahdo. markaas soo dhameeyay oo soo qusqus hadda mara saaraya daboola xoogaa ayaan dhigaa 15 daqiiqo camal kadib insha Allah markaas ayaan arkaynaa. diyaar waaye waa ujeediina umaleynaa soo u khamiire si fiican u khamiire kulligiisa. marka maasha Allah waxaan sameynaa wax yariis buran dhex galgelina xir gacanta ku riixaya kadibna waa diyaar. sida arkaysiin waxaan kusoo shubtay bur baaquliga kadib saan soo ku kuusana soo qaadaya burkiyaan saan ku dhahaya then burkiyaan ka daadinaya. burkii markaan ka daadiyo halkaasaan dhiganayna. haddaa rabtid waa fidi kartaa laakiin ani ma fidinaayo. birtaan oo lagu jarjaraayo burka lagu jarjaro aan sidaas ku dhahaya fiicana ujeediin mahana. dan waxaa haystaa caagaas yarka oo aniga ma haysto kii kale kan ayaan sidaas dhaxda ugu jaranaya. dan waan qaadanaya waxaan sameynaya warqada sidaas u saaranaya fiicana ujeediin mahana. sidaas aan marku soo dhameynaa insha Allah haduu ilaa yiraahdo. dana sidii oo kaleeto waa soo qaadanaya marka saasaan sameynaa insha Allah. haduu waa arkaysiin haduu ilaa yiraahdo sida ku soo baxo. ma u baahnid ba inaa fifidisid iyo sidaas leedahay. then
wax allaala wixii aa haysatid oo kuu jaraayo aadna ku jara kartaa. ani waxaa loogu talagalay bac yaroo waxaa loogu talagalay oo doolshooyinkii waxyaabaha jilicsan lagu sameysto afkeeda waaye. sidaasaan sameynaya kadibna markaasaa macmacaan yaroo qurux badan aad gurigaada kasoo tuuro kartaa. waa kaasaa asxaabteyda, waa kaasaa markii aan soo dhameeyey sida arkeysiinba halkaas xabo iyo dhaxdii kuwa ka baxshay waaye. dhaxda kuwa ka baxshay xataa lama tuuraayo, waa la sameyn rabaa insha Allah. markaa kaasaa hadda waa dubeynaa, birta aan dib soo saaranayna insha Allah. nala socda asxaabey yaa taasho wacan insha Allah. xarajina inaa ka heli doontaan. markaasaa casriye fudud oo saas u dhib badnayn waaye. yaalka markay gurigiiska joogaan wax walba la iska rabaa yaa, marka qaar fi kale iskaga baahan yahay. inkastoo aniga aan ku jiro ayaantaan yaa macmacaan dhan haliga ilaaliyaan taaganaan fahanteen. markaa kaasaa insha Allah waa inoo markii aan dubeyna hadduu Ilaahay yiraahdo. sida arkaysaanba birtii dabka soo saartay waana u gaabiyey. marab inay saliidda saaid iiga karkarto, aad saliid saaid u karkarto hadduu kala burka iga fool xumaanayo oo iga gubanayo. markaa si tartiib inay saliid usoo kululaatay rabaa insha Allah. markaa kaasaa waa soo saartay, dabkana wuu shidan yahay. marka waa inoo markii soo kululaado insha Allah. sida arkaysaanba markaan way kululaatay, waxaan sameynaynaa oo kusoo ridaynaa mal raba si kuleel inuu hore ka karo. hadduu hore ka karo uu ka gubanaya, hadduu wuxuu noqonayaa si fool xumo badan. marka saan aan rabaa sidaan tartiibta ah inuu karo insha Allah. inay ila fahanteen aan rajeynayaa. kale ayaan kusoo ridayaa haddana. afar xabo ayaan gelinayaa marka.
bismillah. Saliidda dabka ay gaarin waa qaybtii taasaa uun dhaxda aan ka babaxshay iyadana sidaasaan ka dhigay yah ilmaheeda markay kuu joogaan waxyaabahan camal waxaa waaye waxay u arkaan fani marka maasha allah saasaa ka dhigay waa kaasaa asxaabi markii aan dhameeyey yah markii maasha allah tabaarakallah saas qurxoodda noqday aa ujeediin hadda sokoraan korka marmarinaa insha allah waa arkaysiin sokorta markaa korka marmarinaayana yah nala socday hakaasa waa kaasa sidaasaa sokorta usoo diyaarsaday sidaasaa u dhex gelinaya mid walba sidaasaa yeela insha allah haddaad shukulaato haysatid waa ku kor samaysan kartaa laakiin aniga sokortaa rabay inaan ku sameeyo maanta kolkaasaa asxaabe insha allah intaas yaraa rabay inaan idinla wadaago intaas yar ayay rabtay walaashiina inay idiin soo gudbiso insha allah waxaa rajeynayaa inaad ka heshiin xiliyada fasaxa lagu jiro dadkeena qurbaha joogo iyo xaafada ilmaha iska joogaan maasha allah marka waa laga farxiyaa maahan marka qaar waxaa waa ilmaha ayaga way korayaan way yaryar yihiin يعني معانكن واسكجي إليهن marka dadka waaweyn macaanka u fiicneen tirada badan laakiin ciyaalka waxaa waaye waxba kama dhigo marka insha allah sidaasaan ku dhameynayaa hadii ilaa yiraahdo sidaas ku dhameyno ayaanu balanayaa insha allah waa inoo iyo kaasoo dhameyna hadii ilaa yiraahdo waa kaasaa markaas barta soo marmariyey gebigeedba yah aragtiin saana soo saaranayna insha allah arkeysaanay sidaas oo qurux badan lagama sheekeyn karo kule insha allah haddana waa kana markii aan saxanka soo saaranay qayb kamid ah saxanka soo saaranay sidaas oo qurux badan arkeysaan haddana insha allah walaashiin wax saas weyn idin lama jeclaanay laakiin waxay idin jeclaatay wixii markaas aan habeeyo oo isdhaho la wadaag walaalahaada asxaabtaada intaas ayaa idin la soo wadaaga insha allah waxaan rajeynayaa inaad wax badan iga faa'iidi doontaan hadduu ilaahay idmo
inaan kala faa'iidno insha Allah biidmillah. waa kaasa waxaa kaloo idinku codsanayaa please haddii aad nagu cusub tahay subscribe-ka noo saar, videoga la gareey haddii aad ka heshid, commentiga waa inoo iyo dhiirigelintiina insha Allah si wax walba oo soo gelino kuugu soo dhacana gambaleelka furo. waadna ku mahadsantihiin daawashadiina. haddii hore noola joogtay oo aadan subscribe-ka igu caawinin, please inaad subscribe-ka igu caawisid ayaan rajeyn doonaa insha Allah. haddana waxaa idinkaaga tagay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.